gurigoodii biyo ayuu soo deeyey. naagtii ayaa dhahayso orod noo soo shaqeey guri cusub saan ku helno. xariifkiina go'aankii ayuu qaatay wuuna macsalaamay. xariifkii waxaa u bilowmay safarkii socdaalka ahaa, wuxuuna ku tegi doonaa tuulo. gurigoodii biyo ayuu soo deeyey. naagtii ayaa dhahayso orod noo soo shaqeey guri cusub saan ku helno. xariifkiina go'aankii ayuu qaatay wuuna macsalaamay. xariifkii waxaa u bilowmay safarkii socdaalka ahaa, wuxuuna ku tegi doonaa tuulo uu ka shaqo bilaabo. tuuladii ayuu imaaday, shaqadii ayaana loo tilmaamay. qabso ayaa la yidhi shaqadaadii waa tan. wuxuuna ka shaqo bilaabay dhagax jebinta. dhagaxii madoowaa laga raadinaya dahabka. kadibna isagoo dhagaxii jebinaya dahabkan weynaaday ayuu ka helay meeshii. dahabkii ayuu soo qaaday asagoo faraxsan, wuxuuna la soo aaday meesha lagu iibiyo. wuxuu soo gaaray halkii lagu iibinayo dahabkii markii la fiiriyey waa dahabka ugu qaalisnaa. lacagtiisii ayaa la siiyey, boorso lacag ayuuna qaatay. kadibna wuxuu wacay reerkiisii wuxuuna ku yidhi furka fakhriga waan tuurnay abbahayo. okay, waa kan reerkiisii ayuu u imaaday. kadibna way iswada raacayaan ayagoo faraxsan, waxayna aadayaan dalxiis. boorsooyinkoodii ayay xirxiranayaan. xaqiiqdii ninkan waxaa saaciday nasiibka, waayo duruufahan caadiyan ayaa soo wajahay. fadlan muuqaalkan laygta ka baqiilin oo na sii sheergareeya. muuqaalkan waxaa idin soo xigtay walaalka cabdulcasiis oo ku magac dheer saamilyare. fadlan meel dheer hala gaarsiin muuqaalkan, oona waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo qadar xayeysiintaas oo ah waa midaan ilmiyeyga nolol maalmeedka ugu raadiya. waa shaqadeedii. aad ayna ugu mahadsantahay daawashadaa daawatay muuqaalka.